natiijada hordhaca ee doorashada madaxtinimo ee wadanka Laberia iyo waxay muujinaysaa inuu hogaaminayo Georgia oo hore u soo noqday xidiga dhanka ciyaaraha gaar ahaan kubadda cagta. natiijada gudida qaranka ee magacooda loo soo gaabiyo NEC ayaa waxay muujinaysaa in ninkani uu hogaaminayo 12 deegaan oo kamid ah 15 deegaan ee la tiriyay inkastoo codadka intaasi ka badan aan wali la tirinin. Joseph Bokia oo ah madaxweyne ku xigeenka talada iminka haya oo ninkani ay si weyn isu hayaan ayaa waxa uu hogaaminaya hal deegaan oo kaliya halka kuwa kale intooda badan ay kaalinta labaad ku jiraan. si uu musharaxu ugu guuleysto doorashada waxa uu baahan yahay inuu helo in ka badan 50% codadka la dhiibtay guud ahaan. haddii la waayo musharax intaasi helana waxa khasab noqonaysa in bisha November ee foodeena ugu soo haysa la qabto wareeg labaad oo doorashadaasi ah. ciidii loo doorto madaxweynaha wadankaasi Laberia ayaa waxay bedeli doontaa haweeneydii ugu horeysay ee wadan ku yaala qaaradaasi Afrika madaxweyne ka noqota. sidoo kalena haysata abaalmarinta caalamiga ee Nobel Peace Prize loo yaqaano. iyadoo natiijadu ay sidaasi u soo baxayso waxa warbeen abuura laga sheegay tababaraha kooxda Arsenal oo ninkani hore tababara ugu ahaa. tababaraha Arsenal ayaa waxa uu yiri waxaan u hambalyeeynaa mid ka mid ah ciyaartoydeedii hore oo noqday madaxweynaha dalka Laberia. way yar tahay in ciyaartooygaagii hore uu madaxweyne dal noqdo. way u wanaagsan tahay inuu madaxweyne noqdo. waan ku hambalyeynayaa inuu sii wado dadaalkiisa.